بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما سومالي والميل بادوني كجوجتان الله وحنا كودا رجينيا عافماد يا عبادة سبحانية عام خير midka soo muraad lehna ina bay muraadkiisa mid khayr ka dhigo kuwa xanuunsan oo caafimaad taam siiyo kuwa geeriyooday jannadii udgoonad hooy uga yeelo kuwa laga geeriyooday oo sabri marka siiyo oo dhasha haysta ba dhasha u barakeeyo kuwa dhal sugayaan dhal barakeysan si lamana dalkeena nabad ay bulshada Soomaaliyeed midna Allah waa wadiisanay hadaba intii hore u joogtay gacalo barako iyo Fariistiinta dib naga soo birtay lag joogin waa u helay gacmo idin barako oo subscribe siida barnaamijkan caawa idin wada ama aan la wadaago doono mid run ahaantii aad uga dambaday war cawaanti iyo wuxuu baan ku baatay inaga dadka wax magaratada ah ee muuqaal aadana ee la tilmaami karo inay miir qabaan leh ayaynu ku batay hasa haatee aqligooda aysan wax badan ku dhex jirin bal inta inaan guda gelin aanu aragno ila yaro iyo wixii ka ooyay waxaan arkay muuqaal waxaan arkay oo walkii socdaal dumar badan iyo dhalinyaro badan oo soo qaadanayaan yani abuurista ilaahay yani ilaahay u uumay ayagoo ku jeesjeesaya soo qaadanayaan oo u jeeday runtii aad iyo aad aan ugu naxay aayad quraan la kor saaray yani wallahi waa gubtay so waxaa idin sheegaa aniga markaan soo galo waxay dhahdaan ilow daawama masta goomarka qaarkood dhaawayba ka tahaybo dad xunaa ka dhalan iska samir waakey sababtoo ah waaye markaan waxu maqlaan dhowr bilood waxaan dhahay waxaan gaas waaye hore ma ay ugu arki jirtay noomay aniga qof ila laba ayaa ka ooyay waa mid waa wuxuu tabanayo dareenkiisa hase ahaatee waxa keenay ina socdaal la yiraahdo oo baryaha kan entertainment bulshada isugu dayay inuu ku soo bandhigo wax uu kaga qoslinayo ama uu fan u arko walaha haatan fan ahaan ma garanaysaa erayadii iyo wixii lagu heesi jiray murtiyeysna aan ciidba ku heesin yaro kooban mooyee hadaba dhalinyaradu maadaama ay haysan wax heeso u sameeya ama ku dhiirigeliya qof walba aragtidiisu bulshada u keena ama wuxuu isku aadsaday ha ahaato ama wax ma garanaysaa ide qofka agdhow yiri waa ku heesaa hadaba inaan ka dhalinyarada ayaa dadku waxay ku caayayeen oo heestiisii ka soo sameeyeen madadaalaan waanay iyo waxay qosol arkayeen inaan ku yar cawray ama indhihiis ayaa weersha dabada ku abacan jilay bilaa baan idinku ya bal nooca kan fiirsha nooca kan eeg always I'm keen ogow inaan ahay boqorkii tiktok maahan hip hop maqaayadaadan ka dhex qaday always I'm keen ogow inaan ahay boqorkii tiktok maahan hip hop maqaayadaadan ka dhex qaday cabsaday always I'm keen ogow inaan ahay boqorkii tiktok maahan hip hop maqaayadaadan ka dhex qaday بالمعنى كوا كانوا يحسلين يمك كوا واحد فني أصلاً أو بين الدعوة نسا وعوي أمده رجلموت كان والأبور إلهي ينندن يراه ودل كيسي جوجا سيدو إلهي مخلوقين إن وقدك تان معامل رجال بعض ما حد كبر بدنتين هدي إذا بلاهين عقلي أتكون دريميسين عقل بالليدين هدي إذا بدريمن إنك أتكون جيسي إنه أهلي قرابي هو يليه ويدبسني يصفي على هذا السمين سا إذن كروح هنا بهلو الباتين وحوياك إذا كان عقل بدن وتنكر والدمرات تنهارا كان يقول إنها سواء عورنا يوين وحبس بدنا عرب ما واحد ودد وذوين عقلك إذا السيء قراتك إذا يكون شيء إن أبور إلهي يكون عيارتان وإنت كاميرا تسوي أديسان مع عقل السليم ما بمسوا عقل عرور عقلك هوسي عقل عرور عقل قاسي قف مسكين ضعيف بأبورت إلهي يبشر بنا آدم عيب لطه نسيد يبهي وابور ما هقرشو ما حبا اسمه دانتا مد قرشة لي إذنكم بجرسي صوبت هذه قرشة دي إنه قرن ويدين أتكحشوتان أبورت إلهي ما تكحشون لسان إنك هذا يرضى هذه إنديه إلهي أسمي أتكو عايسان ما تكحشون لسان سيدي بعد يلا هذين هذا ذلك إنسان يسوق ضيعان وباهان ودريال إذن كباهان أتكو قصر الله هذين صوبت واحد كل احترام ويدين سيدو أبهاي ومخلوقي قشانتي باي ودتي يجي كيو هذا وعلى ويقان مركي أما وين كان يهرب لبيه تمن جريه guriga dhan iyaga u garashiye garaada
in yaroo kooban maaha haatan camalkoodii wuxuu noqday kaamarada iga tusay arka iyo wax abuurta aabbahay ku ciyaara niman lamoodkuna hadda kaba sii daraba lama la buufiyo iyo wax soo baxay kuwa aan dee aragti ahaan adduun baa la joogay aan marnaba ku fikirin in Soomaali laga heliyo kaasoo kale iyo kuwaasoo kale iyo farxad u arkay entertainment u arkay inaan ilaahay waan yaabo wallahi anu yaasiin ahaan waxa ay dhibto qof bini aadan wax laga sheego aniga wax laga sheego ma dhibto sababtoo confidence ma leeyahay isku kalsoonaan aad baan isku kalsoonay abuurta ilaahay sidoo ii khalqay baan ku kalsoonay qof bini aadan oo kaleeto laakiin in lagu eedayo way dhibtaa waxa sababta qofkaas waxa laga yaabaa dareen ahaan inuusan xamili karin inuusan u dul qaadan karin ilo kala had waa aabe caruurtiisa u shaqaystay gurigiisa iyo waxa weeye noloshiisa mid ku eega bulshada Soomaaliyeed caqdad iyo ciil iyo qabyaalad aan la doonan halkaasaan ka daawadayo ka arkaa maxaa keenay in la caayo iyo inuu ka damqado waa dareen ahaan waa qof aad ma garanaysaa ide u qalbi jilicsan baan aaminsanay marka qofka aadanaha ceebtooda doona ee abuurta ilaahay ku caayo horta waa xawayaanka ka caqli badan xawayaanka wuu ka sii hooseeyaa haddaba waxa dadku way la xishoon jireen waxyaabaha ceebaha abuurta ilaahay wax laga sheegayo dadku hadal bay ka dhigi jireen waxay banaanka keenan ma ahaan jirin haatan kaamirada baa la soo istaagay sidaas aad u eg tahay indhahaagu waa sidaa iyo afkaagu waa sidaa iyo sankaagu waa sidaa iyo dhagaagu waa sidaa waar madaa u sameeyay caaqiyo iyo caaqadii saatiin soo ilaahay uma abuurin sidaa hadda koor baa waxa la yiri islaam baa waxa dhashay ilmo tuur leh mid baa soo booqatay haweeneydii soo booqday ku jira markaasay markay aragtay ilmihii bay tiri allah wuxuu tuur buu leeyahay tan sidaa leh uur bay lahayd iyadii laba tuur leh bay dhashay mid ba waxa kula yaabaneed mid tuur leh iyadii waqtigeedii baa la gaaray xilligay dhal lahayd laba tuur leh bay dhashay laba kuwiina kan indhaha sidaa ka wada dhigay maxay ku tahay ilaahay inuu indhahayna qalloociyo dhagaha iyo lugaha maxay ku tahay ilaahay aqli xumadina aad ku darsataan waliba dadka kale to ilaahay aqli buu ugu daray aqli xumadina markaad ma garanaysaa inkaar ilaahay idinku dhacdo abuur noocaas aad ku dar maxaa sameynaysaa war wax barta barashadu ma inaad quraanka qoro iska akhrisaan fahma wax uu qoro waxa dheertihiin ma jiro waxa dheertihiin oo garasho iyo garaad ma jiro sababtoo aad damir leediin ama dadnimo aad ka xishoon lahayd eebaha quraankiisu ku tilmaamay inuu aadanaha karaameeyay isaga quraankiisu ku tilmaamay wuxuu abuuray wax ugu wanaagsan in bini'aadanka yihiin waad la simantiin midna gaar uma amaanin midna gaar uma sheegin midna gaar uma ishaaran marka waxaan leeyahay aragiina fool xumo ah iyo qaabka aad sameynaysan markaad abuur ilaahay wax ka sheegaysaa qof kasta oo damir lagu idin ka naxaya inuu aan arko ka naxaya idin daawadu dhibsanaya hoos baa wax leedinka wada leeyahay wardada kale miyaysan damir lahayn miyaan dad wax barin miyaan guryaha dad u joogin miyaysan diinta aqoon miyaysan aqli lahayn miyaysan mustaqbal iyo ay dhalaan ku fikireen abuurta ilaahay yaa wax laga sheegay halkaas aan wada fadhiyaan qof abuurta ilaahay wax ka sheegay aan arko waliba haatan waan xishooday waxbaan xeeliyay dib baan idinku noqonayaa idinka wallaah daaya dadka ilaahay watan kale kuwa lagu mashquulay wax laga sheegay ma garanaysaa abuur ahaan wax looga sheegay ama nafaha war aadana wuxuu kugu sheegay waxa ka muhiimsan waxa naftaada ka aamusatay sida aad u soo aragto in lagu xanto waxa ka horeyso in lagu xasuusto damoor qofku adiga ka hadlayo damoor aad ka qab weyn tahay weey damoor aad ka qiimo badan tahay weey damoor aad ka aragti dheer tahay weey qof muslim ma yaakul lahma akhihi maytan fakr ihtimuhu bu ogyahay iimaan haduu leeyahay qof aadana ah oo garasho leeyahay in iyo ceeb kula doonmayo ama abuurta ay baa ka sheegay haduu yeelana aqoon xumo iyo dameer xumo iyo dulinimo iyo maala yacni u geeyay marka dan lagama galo waa in dhiirigelin iyo hore u socdo ku noqotaa marka waxa weeye intaas aan idin tilmaamayay barnaamijkan oo kale inta dib ugu kulmayno warsan iyo war khayr iyo khayrkan isfarna salaamu calaykum wa rahmatullahi